magaalada san la soconaba shabaaba ka dhashay 2006 iyo wixii ka dambeeyay waxa la lahay macna loo yeelimayna waa la fududeystay sidii loo fududeystay maanta waa kaasa dawladii qabaa'ilkii xaafadihii cid kasto maanta dagaal ay kula jirtaa waxay ku tusaysaa miisaanka ay leeyihiin culayska ay sameeyeen iyo dhaqaalaha ay bulshada ka dhex sameeyeen yaa diidaya ciyaal weero inay sidaas oo kale noqdaan maxaa diidaya haddii la fududeysto war habaraa dhashay aabbaa dhalay guriyuu ka soo kacayaa hadday cisho waaye waa loo celinayaa u adkaysamayno maalin kasta waxaad arkaysaa moobeel $100 ama $200 jooga amaba ka yar ayaa lagu leeyahay qof dhan oo bini aadam ah oo muslim ah oo Soomaali ah oo ehel ah oo qaraabadiisa ayaa loo dilayaa hal moobeel loo dilayaa qofka moobeelku dilaayo waxa uu ku dhaafaa ma sheegi kartaa waa maya maanta ma joogto maxaan qaadanaa iyo xaggay naga haysataa ma joogto kulligiis dalka dagaal ku jiriya dagaalku ku jiriyo midna ciidankii iyo bulshooyinka iyo shacabka Soomaaliyeed qabaa'ilka Soomaalida ku jiro annagana dagaalkaas qaybaan ka naawaa inaan galnaa dagaalka dhaqaalihii la sii jiro waa laga gooyay shabaabku waa laga yareeyay dadkii isaga yari jireen u garsoor tagi jira waa ka istaageen afarta gaar culaysaa looga hayaa maxaa hoostayna ka kacay cayayaan yaryara hoostayna ka kacay oo midi iyo baangad wata hoostayna ka kacay markaasaan waxaan leenahay weer aan u bixinayna weeramaana waa birgaato waay u baahan in la iska qabto haddaadan idinkii iska qabanina ma cid inta noo timaada naga qabayaa noo sheegi karo reer dharkeyle iyo reer madiine iyo reer kaxda iyo reer dayni la iska sugaano reer weli iyo wacdiya reer waa bari reer xamarjo jaban u soo dirayna ayaga ka qabanaaye suuragal miya annagoon qaban karin aan dhihi doonaa ciyaal waraan qabanno laakiin hadday goor tahay halla qabto kii saaxiibtinimo gartaa lala saaxiibo kii baloon hala dheersiiyo kii burro munka loo dugo kii gacanbir lagu qabtana gacanbir lagu qabanayaa maalin dhaweed waxa dhacday bulshada magaalada Muqdisho joogto heerka ay marayaan waa inay intay shabaab iska qabteen ay dadku gacanta ku qabteen waa guuleysteen waxaan rabnaa marka iskama imaanin bulshadu mustawaasay soo gaareen shacabku waa kaciyay waxaan rabnaa shacabka kacay inaga aanan ka harin inaan ka horeyno mooyaane magaaladii aan joognaa reer magaalana waxaan leenahay reer baadiyaha kacay xaan anagu ku cilaana oon cayayaan ku qarsanayna waryaana cayayaanka guryaha ku qarsanayna la soo sheego waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraahdo si wacyiga bulshada loo dhiso wasaaradihii iyo wasiiradii iyo kulligood waxay danaynayaan inay dal bulshada la kulmaan haddii ilaahay yiraahdo qaybta galbeedaan ku bilaabaynaa kulankaas isiga ah